xilli dowladda UK ay war ka soo saartay halka ay ka taagan tahay aqoonsiga Somaliland xilli baarlamaankaasi la horgeeyay dood ku saabsan aqoonsiga Somaliland wasiirka arrimaha dibadda Afrika ee dowladda UK ana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa war ay ku soo qortay barta Twitter-ka ay ku sheegtay in dowladdeeda mowqif joogto ah ay ka taagan tahay arrinta la xiriirta Somaliland iyo ku aadan in la aqoonsado ku dhawaad 30 sano ayay ictiraaf raadinayaan Somaliland waxa ay madaxdooda dadaal dheer ugu jiraan in si ictiraaf leh ay u soo hoy lahaayeen haddaba shacabka ku nool gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa maanta la dhaqaaqnay mikrofoonka Saab TV waxaan wax ka weydiinaa aragtidooda ku aadan Somaliland inay ka go'i karto Soomaaliya xilli Somaliland lagu xujiyay in ictiraafka wili oo yaalo gudaha dalka Soomaaliya Ingiriisku si wanaagsan buu hadlay baarlamaanka dhammaan wada hadlayna xildhibaanada si wanaagsan bay u hadleen inta badan Somaliland way taageersanay intii fadhiday meesha dhowr iyo 30 qof aragtiyo badan bay ka hadleen dawladda Ingiriisku baa tiri mowqifkeega aan ku taagan u bay sheegtay dawladda Ingiriisku baarlamaankuna mowqif ka taagan yahay buu sheegay waxba Somaliland kama duwanaa South Sudan taa gooday iyo say u goodayba imikana galbeed baa dabada Somaliland ka wada iska ictiraafku iska helaysa insha Allah bismillaah kariim wax ilaahay ku xirana bilaadan bay laga doonto ma telefishinka Saabna waan ku dhawaay Saab TV magacaygu waa Maxamed Daahir Mursal haddii ra'yigayga aan ka dhiibto ictiraafka Somaliland ay ku riyoonayso in la codso maxaan ku raadaa la aqoonsado wax soconaya inaan ahayn baarlamaanka Ingiriiska 17 xubnood bay ahaayeen raggii meesha ku shiray 17 xubnood nin baana tala soo jeediyay taladii uu soo jeediyayna kumay raacin haddii baarlamaanka Ingiriiska oo dhan isu tagaana Somaliland ictiraaf ma sii karaan ma garata baadidu meelayna jirin haddii loo doono waa lagu daalaa Soomaali hadday kala go'ayso iyo hadday midoobayso ayada dhaxdeeda u taala midnimadii Soomaaliya Hargeysay taala ictiraafkii reer Hargeysana xamar buu yaala ayagu ha ka wada hadleen yaan dadka masaakiinta oo shacabka been loo sheegi ninkii kala soo rabow ninkii kala saarayow ninkii suxun u fakarow kollaba kuu suuroobi mayso Soomaaliya Soomaali baa leh sareeda hadday ku waarto hadday sameeyo xun qaado siday doonay ha noqotee ictiraaf hadday rabaan walaalahayo xamar buu yaalaa ha yimaadeen warmaasantiin Saab TV sida barnaamijkan ugu reedinaysiin waan idinka mahadcelinaa ictiraafku horta wadankan wuxuu u baahan yahay tabaabshaleen badan dalkaanna wuxuu u baahan yahay inaad dalkan isku mid noqdo hadda tusaale waxaan ka soo qaadi karaa dal wax ka raadinaysiin oo kale hadda tusaale Ingiriiska markii uu raadinayo kale wadanka Iceland oo kale marka uu raadinayo wuxuu ku bixisa dagaal idhiyo ku bixiyaa lacag laakiin waxa dhiila Soomaalidu inay mid noqoto antaas ka rajeynaan jecla haddii madaxda ahaan ay wada fadhiisan lahayn in marka meel u go'do iyo markaas antaas rajeynaan insha Allah Soomaaliya horta inay kala go'do wax dan ku jirto ma ahan Ingiriiska ay soo celiyeen arrinta ay soo celiyeen horta aad ugu faraxsanahay mar haddii ay Somaliland ay go'dane ugu badnaan inay sii go'ayso Puntland ay ku xigto galmudugna ay ku xigto Soomaaliya in la qayb doono qaybna in la gumaysan doono aaminsanahay aad ma cadda xilliga sida rasmiga ah ee Somaliland Soomaaliya ay kaga go'i doonto hase yeeshee madaxdooda ayaa dadaal dheer ugu jira in Soomaaliya mar uun ay ka go'aan Somaliland dad badan ayaa qaba in haddii Somaliland ay go'do ay maamul goboleedyada kale ee dalka kaga jiraan iyaguna ay go'i karaan taasi oo ka dhigan Soomaaliya in la kala qeybqeybshay deeq macalin Jakay Saab TV Muqdisho qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber